السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada bar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay maanta oo ah maalinimo Isniin ah taariikhduna ay tahay 27 bisha May sanadka 2024. barnaamijku waa kii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono haddii Allah awood leh uu ka raali noqdo. haddaba dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa. dagaalkii ka soconayay Jabaaliya iyo Rafax halkee buu marayaa maantay. tafaasiil ku saabsan dagaalkaas video cusub oo ay muqaawamada Falastiiniyiinta soo dhigeen ayaanu barnaamijka ku sharaxi doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Falastiin oo calamada wadamada Spain, Norway iyo Ireland ka taagtay meelaha maamulka Falastiiniyiinta uu ka taliyo ee daanta galbeed gaar ahaan qaybaha dawladaha hoose. waxaana la sheegayaa in loo diyaar garoobayo munaasabadaasi berito oo ay si rasmi ah dawladahaas ugu dhawaaqi doonaan in Falastiin ay markaa tahay dal ay u aqoonsadeen dawlad madax bannaan. Israa'iil oo durbaba bilowday dagaal ay ku qaadayso safaaradaha dawladahaas iyadoo ka hor joogsanaysa inay wax u sameeyaan Falastiiniyiinta shacabkooda inay markaa xiriir toos ah la sameystaan. haddaba sheekada iyadana cajiibka ah barnaamijka ayaan idinkula socodsiin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa arrin cajiib ah. waxaan mar dhaweyto idiin soo gudbiyey barnaamijyadeedii hore inay telefoonka ku wada hadleen Sisi iyo Biden. la isku afgartay inta macbar Rafax laga furayo in markaa gargaarka laga geliyo meesha la yiraahdo Karam Abu Salim oo ah meel xuduud ah oo Masar iyo Israa'iil iyo u dhaxaysa iyo Gaza. taas markii baabuurtii ay soo baxeen gargaarka ayaa wadada loo galay. aan aragno Israa'iiliyiintu inay diideen wax gargaar ah in loo gudbiyo dadka ku nool Gaza ee dhibaatadu ay haysato. waatahay waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa khasaaraha dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay duqeymihii xalay la duqeeyey kaamkii teendhooyinka ay ka dhisnaayeen ee galbeedka Rafax ku yaalay ee dad masaakiina Israa'iil ku laysay tiradooda oo sii korortay iyo xaaladdu sida ay tahay iyo falcelinta caalamku ay ka sameeyeen arrintaas barnaamijka ayaan idinkula meel dhigi doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi. kulan wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena aan idinkugu talagalnay maanta oo Isniina. waana barnaamijkii ugu horeeyay dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa. haddaba warka ugu horeeya ee barnaamijka waxaynu ka dhiganaynaa
xalay waxaa barnaamijkii ugu dambeeyey aan idinkaga sheekeeyey arrinta murugada leh ee ka dhacday dhinaca galbeed ee rafax halkaasoo israa'iil ay gantaalo ku duqaysay dad masaakiina oo u badan haween iyo caruur teendhooyin ku jiray la og yahay aaggaasu inaanu wax mushkilada ahi ka jirin dagaal ka jirin oo dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin dhinaca galbeed ee rafax ayay gantaala ku duqaysay haddaba xalay waxaa tiradii ugu horreysay lagu sheegay inay ahaayeen 30 qof inta dhimatay inta la arkay 10 kalena ay dhaawacmeen haddaba saakay maxaa ka cusub laba arrin ayaynu ka eegi doonaa khasaarihii maxaa ka soo kordhay dadkii masaakiinta ay la laayay ilaahay shuhado waaye ilaahay ha ka aqbalo shahaadadoodan leenahay dadka masaakiinta ee dulmiga lagu laayay midda labaadna waxaynu ka eegi doonaa falcelinta dowladaha adduunka iyo hay-adaha ay ka sameeyeen dhibaatada dadka masaakiinta loo geystay haddaba marka ugu horreysa waxaan ku bilaabaynaa wargeeska la yidhaahdo al-qudus al-carabi ayaa wuxuu sheegay majzarada ama xasuuqa aan loo meeldayin ee foolxumada ah ee lagula kacay dad masaakiina in tiradoodu ay gaartay ilaa 50 qof oo shahiidiina 10 kalena ay ku dhaawacmeen dhammaantood dadkaa waxay ka mid ahaayeen dad barakacayaal ah oo ku sugnaa galbeedka rafax halkaas oo markaa ay maciin bideen inay ku noolaadaan waa tahay dadkan marka la duqeeyey tirada dadka dhintay hadda waxay leeyihiin hay-aduhu ilaa 50 qof ay sii maraysaa dad kalena waa la rumaysan yahay inay meesha ku gubteen meesha aadaa loogu baaba'ay 10 kalena way dhaawacmeen 10 xalay waa ku celiyey 10 waa macnaheeda lama yaqaano tirada dadka dhaawaca tiraday ka bateen waayo taas marka hawshaas halkaas ka soo korortay waa tahay midda kale xamaas war bay soo saartay saakay ku saabsan xasuuqaas waxaa sidoo kale ka hadlay dowlado waaweyn carabtii way ka hadleen dowlado kale way ka hadleen dhammaantood waxay codsanayaan in israa'iil ay joojiso dhibaatada dadkaas golaha ammaankuna uu gacmaha qabto israa'iil uu joojiyo marka dowladaha masar sacuudi arabiya wixii oo dhan mid walba way soo hadlaysaa qoraal ay soo saaraysaa dadka kanu ma qoraal ayaa maaragtay wax u taraya qoraal waxba u tari maayo xamaas waxay tiri masar isxaan noo sameey dadka masaakiinta ah ambalaasyadii iyo wixii xuduudka inta furtaan dadka meesha laga soo qaado cisbitaalada masar iyo meeshii lagu daweynaha lagu daweeyo meesha cisbitaalo nafana male cisbitaaladii waa la duqeeyey dawooyinka laga joojiyey waa la cuna qabatay dadka ayagoo dadka marka dhibaatadaas ay ku jiraan marka waxaan leenahay mar kale inta dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacanna ilaahay ha u boogadhayo laakiin meesha waxaa ka jira waxay tahay dowladihii carabta waxay ku leeyihiin golaha ammaanku tallaabaha ka qaado horaa idinkugu sheegay golaha ammaanka go-aanu soo saaray inta fariistay oo xataa maraykanku markaa ka aamusay inay israa'iil waxa kan joojiso ma dhagaysanayso maxkamadda cadaaladda warkeeda waa ogeedee ma dhagaysanayso yaa waxaan dhagaysanaa cid dhagaysanaysa lamaano sheekada ugu yaabka badan marka waxay tahay ciidanka israa'iil waxay yidhaahdeen waxaynu garowsannay ama aanu maaragtay sheegaynaa in dad rayida ay ku dhinteen duqaynteeni xalay marmarsiya marka u sameynayaan u fiirso maxay leeyihiin ma garanaysaa waxay leeyihiin inkastoo dad rayida ay ku dhinteen raydku anaga uma socone hogaamiyayaal xamaas ka tirsanaa dadka ku dhex dhuumanaya aan raadinayn warkaas ka warrama dad masaakiin oo teendhooyin ku jira oo nagta inta laga geliya laleeyahay oo dad inay dhintaan ma rabin laakiin dad hogaamiyaala ku jiray hogaamiyaashaas dartooday dadkaa ku baxeen kulaha marka waxooda waxay iska noqdeen wax iska ciyaara oo iska jees-jeesa laleeyahay marka arrintaasu marka halkaasay mareen dadka marka mushkiladaas ku jira saas loo duqaynayo midda kale haddana cunaqabatayna lagu hayaa cunaha la hayaa cunaha nab
meelihii wax u soo marayeen wax soo mari kara lama arko macbarkii rafax ama xuduudii masar iyo gaza u dhaxaysay israa'iil baa jag way xirtay weli iyadaa fadhida inkastoo shalay ay lahaayeen waan ka baxaynaa laakiin waxay ka baxayn lama arko biden iyo Sisi wada hadlay waxaa lagu heshiiyey in gargaarku aanu joogsan ee inta israa'iil halkaa ku mashquulsan tahay inta laga kicinayo israa'iil in maaragtay meeshaan kale la furo waxaa la yidhahdaa xuduudka kale karam abu salim aa la yidhahaa kaas sidiisaba israa'iil aa maamuli jirtay israa'iil iyo gaza u dhexeeya karam abu salimkii biden iyo way la hadleen israa'iil waxay dhahaan fur israa'iil marka waxay waa furnay ee gargaarku ha galo suuku gala waxay qabanqaabiyeen wixii yuhuud ahaa dhan inta meesha isugu tageen mudaaharaad baabuurtii hortaagay marka dowlad ahaan annagu waa ogolnahay karam abu salim in la furee laakiin shacabkeeniyaa diidan in wax gargaara loo gudbiyo halkaas yuhuud maaragtay lugooyo kama dhammaatay dhaan mogta iska daba wareeg maanta dhan war hadda meeshaana xirteen macbarkii rafax ee masar iyo gargaarka loo marsiin lahaa haddana kan annaga waa furnay leeyihiin dowlad ahaan annaga ma joogno laakiin mudaaharaaadyadan dadkan xoray u yihiin mudaaharaadkooda baabuurtii ay hortaagan yihiin way hordhoobay wax gargaara oo galaya karam abu salim male leeyihin nimankan gaajo inay u leedaana rabnaa yahuudiya calamo qaadanayso meesha dhooban ayda tuso bal video laga duubay sheekada cajiibka ah sida yahuuddu baabuurtii gargaarka ay u diidan yihiin inay galaan gaza אנחנו כאן במחסום כרם שלום ממאות משתתפים, בני משפחות החטופים, בני משפחות החללים, מילואימניקים משוחררים, מפונים מהצפון והדרום. המשאיות הולכות אחורה, משאיות הסיוע לא יעברו, משאיות הסיוע... marka xal halkaasu mara madfac waa lagu garaacaa cuntana waa loo diiday meeshuu gargaarka usoo mari lahaana saasaa loo galay waaya marka hawshaasu halkaasay maraysaa mogtahay waxaan isweydiinaynaa marka haddii xuduudihii la xirtay oo israa'iil ay diiday inay wax galaan dekadii maraykanku keenay raashinkeedii aawo dekadii maraykanka horta maalin dhexdaasa waa idiin sheegayoo mawjadaha baddaa ku kacayba ilaahay baa ku kaciyay mawjado markaasaa had qaybba meelaa laga soo arooriyay waa kala haadi laakiin intaysan mawjaduhu ku dhufan ayaa gargaar ka soo degay meesha gargaarkii marka qayb ka mid a maadaama xuduudihii la xiray oo dadkii gaajaysan yihiin ayaa baabuurtii gargaarka lasoo fasaxay waxaa dhacay marka wax aan wanaagsanayn dadkii de dhalinyaro waayo way gaajaysan yihiin way rafaadsan yihiin dadkii xuduudihiia laga xirtay madfaca lagu wadaa wax u damqanaa lama arko dadkaas markaas waxaa tiri aljaziira soo daynaysaa baabuurkii gargaarka waday wuxuu u socdaa makhaasiino in gargaarka lagu xareeyo la rabo si dadka loogu qaybiyo dadkii wadaday u taagan yihiin waxaan aada uga naxay marka oo jaziira laftirkeedu barnaamijkooda shabakaad la yidhaahdo uu soo qaatay wiil dhalinyaro ah ayaa wuxuu rabay inuu loor bura kala dego gaariga burkii uu siday ama daqiiq inuu kala dego ayuu damcay markaasuu inta ka soo booday daqiiqii ayuu ku dhacay gaarigii hoos galay markaasaa taayirkii gaariga amaray marka dadkaasu noloshaasay ku nool yihiin nolol aan caadi ahayn
oo aad u dhib badan imtixaanay ku jiraan dadkaas ilaahi subxaana wa tacaala waa imtixaanay reer falastiin waana dad adkaysi badan runtii waxaa lagu leeyahay adduunka dadka ku nool shucuubta ilaa hadda waxa ay shacabka falastiin u adkaysanayaan waxa uu adkaysan kara ma jiraan haddaba aan idin tuso videogan baabuurtii iyo dhalinyaradii iyo wiilkii loor bura uu rabay inuu u qaado qoyskiisii inuu halkaa maaragtay dhibaato ka soo gaaray waa tahay marka waa arkaysaan dadku xaalkaas way ku nool yihiin ducada ha joojinina insha allahu tacaala ilaahay wuu ka dulqaadi doonaa imtixaankan way ka guulaysan doonaan dhibka ay ku jiraan dadkaas tabar kale ma hayno waan u ducaynaynaa u duceey ducadaas mar walba ha iloobinina markaad tukanaysaan markaad cibaadaysanaysaan mar allaala iyo markii aad maaragtay salaada tukataan u duceeya mar walbana u duceey falastiin marka insha allahu tacaala dhibaatadaa way ka bixi doonaan wayna guulaysan doonaan marka waa sii wadaynaa marka warbixintan marka iyadana waxaa la leeyahay Spain, Norway, Ireland waxay berito si rasmiya ugu dhawaaqi doonaan inay aqoonsanayaan dowladda Falastiin awal waa idin soo sheegay 28 bishan May inay saddexda dowladood aqoonsanayaan dowlad Falastiin ay leedahay dowlad Falastiin aan aqoonsanaynaa 28 waa berito marka diyaar garowgaas socda Falastiin waa aqoonsanaynaa warka jooga xoogaa dib u dhiga waxaas ma jiraan wax ka jira ma jiraan waaye markii saas la yiri oo aqoonsigaas berito uu ku aadan yahay ayaa maanta ilaa shalay xarumihii maamulka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed calamadii waxaa laga taagay Norway, Ireland iyo Spain Norway, Ireland iyo Spain calamadooda ka taagan shacabka Falastiin way ku faraxsan yihiin inaad isbarbar taagtaan dulmiga lagu hayo gumaysiga lagu hayo aad diidaan wixii tabartiina inaad dowlad ahaan u aqoonsataan oo macnaheedu gumaysiga waa diidnay Falastiina aqoonsanay waa tallaabo wanaagsan runtii tallaabo fiican waaye diblomaasiyadeed oo wanaagsan waaye laakiin maxay tari kartaa durbaba Israa'iil waxay tiri maxay tari kartaa qunsuliyadda Spain ay ku leedahay Qudus wax xiriira dadka Falastiiniyiinta ma la yeelan kartiin aliir qunsuliyadooda waa loo sheegay dowladaas safaarad kama furi kartaan dhulka anaga wali kor ka haysana maamul goboleed waa kor anaga ka xukunna waxba ma samay kartiin banaanka ka qayqayliya diblomaasiyad ahaan dowladda aqoonsana dhaha laakiin halkan waxba kama shaqaynayaan waaye laakiin way u fiicantaa Falastiiniyiinta waa tallaabo wanaagsan tallaabo diblomaasiyadeed waaye Ireland, Spain iyo Norway inay maaragtay yiraahdaan waxa lagu hayo dadka waa dulmi macalinka weyn xartiisa ka soo dhex baxaan oo ay banaanka soo istaagaan wax caadi ma way fiican tahay marka dowladda kale iyaguna way soo socdaan leeyahay arintaa way sameyn doonaan midda kale waxa leeyahay dowlado waaweyn ayaa qaylinaya midowga Yurub iyo dowlado kale oo si gaar ah midowga Yurub ugu jira Jarmalka iyo kamidii waxay leeyihiin war aan ilaalino maxkamadda cadaaladda warkeeda aan ilaalino annaga samaysanay waxa kan Israa'iil way diidan tahay wixii maxkamaddu ay weydiisatay way ka jawaabi laadahay macalinka weyn ma maqasheen warkiis waa amsay war ma jiro
ورمجلو ماشاس waxaan awalba maxkamadda caalamiga iyo horaa loo sheegay ninkii waraysiga markii laga qaaday dacwad oogaha maxkamadda wuxuu yiri afrikaanka iyo waxa kana u samaysanay annaga Yurub nagu keenkeenin iyo saaxiibadeena dheh kula marka sheekadii marka maalin walba ceebtoodii ah reer galbeedkii banaanka imaalis maxkamadda caalamiga dambiyada maxkamadda maartay caalamiga waa kana waa warkeeda ma shaqeynaayo afrikaan hadduu yahay waa lala ka caasay iyo dadkan kale oo iska tacbaanka waa allooshaal waa la qaadanaa kuwaas marka sheekadaas iyaduna halkaasay kaga gudbaynaa qodobka ugu dambeeya barnaamijka dagaalkii halkuu maraya Jabaaliya ayaa dagaal aad u kulul u ka dhacay leeyahay saacadihii la soo dhaafay meeshaas meel caadi ma rafax hadda warar badan lagama soo sheegayo ayaga laftirkoodu culayskii ay ku hayeen iyo inay sii durkaan way joojiyeen marka iyaga laga warsugaa laakiin Jabaaliya waa ku laalaabanayaan saakay mar kale galeena leeyahay nagta laga geliyay marka video waxaan idin soo dhigi doonaa qaybta linkiga oo maartay waa soo ziyaaranaynaa booqashaan ku tagi doonaa videoga laakiin waa video iska yar القسام معها وحصادري وسرايا القدس جبهتها فلسطينيين توردور لوضعنا أبوها وين القسام أورتو وين وأنا كان ضدك أفطوبت أبو عبيدة يرجع سوا كواس كورنا وحلي هذا سرايا القدس سرايا القدس مركز جبهة إسلامي جهاد أما الجهاد الإسلامي اللي يرادو قرب كود ميليتري جواي سيدا القسام وكلام جاران لكن وأنا من حرفان وقطر أيجنا وحبي صوت دوبان ويتجالبان هو بيالي ردان كنتالي ردان حتى كنتالها مقالوين كإسرائيل وجود هاي غيبكين وأنا من مركز تجالباي أيجا مركز مانتا وحي رادين فيديو صدري القسام حقا ولا سوى القسام على أبو أوي صوت دا قرب نوكي أفطو بطيء تانجيدي شرعي عن كشيكينا يوحي نكتة كجلس وحي ران قرب صوت صعود على القسام وحده جدك كسور جيران لكن متى وحكوسي قراء علينا يكليه سرايا القدس وحي نكتة كجلس وعيال الحافظات وحي قراعين هذه تسنى هذا مركو وريتها فيديو إدي شرحل الجزيرة وحل هذا سرايا القدس أيا وحا أي فافسي قرب كميلتريا دغدغاقة جهاد الإسلامي فيديو أي كوبرت المعميسان عيدا إسرائيليين أو كله مني أو قلي متكمل قريها كويا لبرقة مخيم جبالية أو كتها لوقوية مريكا غزة مركب فيديو مهمتي سوى أساس نمن عيدنا أو إسرائيليين أي قريها جبالية قيبة كمل قلي حافظها جبالية markay gees ka soo galeen ay dhinaca ka galeen way dhaqaaqi waayeen marka meeshay ku jiraan nimankan marka saraaya القدس dariishadii ka tooganayaan markaas ay baasuukaha laga rido garabka ee loogu talagalay taagiga in lagu gubo ayaa dariishada loo gelinaa waa arkaysin wiil dhalinyaro inta ka baasuukaha qaato ayuu nimankii dariishada u gelinaa nagtu ka gelinaa marka dagaaladu halka aad bay uga socdaan leeyahay saacadii la soo dhaafay saaka dib ay uga qarxeen rafax waxa la sheegaya dagaalo goos inay ka socdaan waliba meesha ay ka socdaan waa meesha wadada la yiraahdo Philadelphia inay wadada dhan wada qabsadaan ay rabaan oo isku xirta macbar rafax ilaa badda si ay u kala xiraan Falastiiniyiinta iyo Masar marka taas wali ma ku guuleysanin sheekadaas way socotaa marka wararkii ugu waaweynaa saacadihii la soo dhaafayna intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta linkigana waad aadi doontaan haddii alla idmo bal videoga kooban isaga soo quraacda qada iyo casho fiican way soo socotaa u malaynaa nimankii alqasaama videoyadooda way iska soo daba dhici doonaan waa la sugayaa waxay ka hadli doonaan nimankii afduubteen shirqoolkii dhacay videoyadii waxaasoo dhan aadaa looga sugayaa saacadaha soo socda marka hadday maanta soo daayaan hadday beri soo daayaan waa arki doonaa barnaamijkii ugu horreeyay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii labaad iyo saddexaad way noo harsan yihiin haddii wax soo kordhaan barnaamijyadaas ayaad la socon doontaan haddii allah awoodda lihii uu ka raali noqdo fariin haddaad noo haysaan qaybta fariimaha ama commentiska noogu reeba
barnaamijkana like gareeya oo share gareeya haddaad ku cusub tahay subscribe saar youtube-ka facebookana follow gareey si barnaamijyadeena aad ugu xirnaato mar walba inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno akhyaaray meel kastoo aad joogtaan ha iloobinina ducada waan idin xusuusinayaa mar walba inaad Falastiin u ducaysaan nabadgelyo